Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Haddii aad kanaalkeen ku cusub tahay saaxiib subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada. Saaxiibayaal sii gaarsiiya saaxiibadada kale mowduucan waa mahadsantihiin. fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. yaa ku dhaca oo guursanaya gabadha ay walaalaha yihiin wiil hogga madaxweynaha ka ah Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa doonaya walaashiis nin guursada, balse guurka gabadhaas ayaa waxaa horyaala su'aalo dhowr ah oo ku keeni kara mustaqbalkaaga waxyaabo cajiib ah. Joog saaxiib, su-aashu sidaas ma aha. Balan kuu faaleeya mowduuca. Gabadha iska guursa ma ahan. Shuruudo adag ayaa ku xiran inaad su'aalahaas buuxiso ayaa muhiima. Waa tan koowaade, waa inaad ka qalin jebisay ama arday aad ka tahay jaamacadda Kim Il-sung ee Pyongyang. Markaagu waa inuu yahay 10 feet. Waa inaad qurxoon tahay oo aadna ka soo shaqaysay ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Waqooyi. Intaas shuruudahaas ayaaba cajiib ah. Bal qofkii shuruudahaas buuxiya ayaa walaashiis guursan doona oo gaafka ciyaar loo dhigi doona. Cajiib. Shuruudahaas ninka buuxiya ayaa noqon kara ama u bareeri kara gabadha lagu magacaabo Kim Jong Un ay walaalaha yihiin madaxweynaha mayalka adag ee Kuuriyada Waqooyi. Gabadhan 29 sano jirka ah ayaa dhowaan loo magacaabay xubinimada golaha dhexe ee ugu awooda badan. Ilaa hadda 30 nin ayaa isu soo sharaxay guurkaas, kuwaas oo ay toos u weeraraynayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un. Balse waxaa macquul ah haddii aad been sheegto oo xogtaada hadhow la soo helo inaad naftaada ku wayso. Gabadhan guurdoonka ah ayaa iyaduna mayal adag sida walaalkeeda. Se qofka guurkaas ku guuleysta ayaan dib idinka soo sheegi doonaa. Waan hubaa in kaas inuu faraha la galayo qoom cajiiba oo reer Kim Jong Un ah. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuceena ee fi amaanillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.